Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay asxaabteeda meel kasta joogtaan. Kusoo dhawaada channelkeena Somali Chef. Maanta waxaa idin hayaa alaabtan waxyaabaha aan ka kariyay saa u kariyay waxay tahay surprise waa insha Allah stay tuned. Daawasho wacan. Waxaan ku shubayaa baaquligan 3 koob oo bur ah. 1 koob waan ku shubay, 2 koobna hadda ayaan ku darayaa. Koobkii labaad already waan ku shubay. Kii saddexaadna waa kana. Maanta burkan kuma daraayi wax sokor ah, wax cusbo ah, waxba uma isticmaalay. Halkan waxa iigu jira waxa waaye butterkan saakadii hore ayaan fridge ka geliyay asoo jilicsanaan baaquliga ku shubay. Wuu iisoo adkaaday. Halkaana waxa iigu jira waa biyo cad waxaan ku dhex daray baraf ice cubes aan ku dhex dartay. Butterka waxaan hadda u jarjarayaa si box ah. Saa hore idinku sheegay saakadii hore ayaan waxaan ku sameeyay baaquliga intaan ku shubay oo saan u simay ayaan fridge-ka meesha kore ayaan geliyay. Adayg ayuu ii noqday. Uu adkaaday saan ka rabay ayuu noqday. Haddana waan jarjarayaa box-kaas ayaan u jarjarayaa. Waan jarjaray butterkii waxaan hadda ku shubayaa oo aan rabaa inaan ku rido burkii iyo cabirnaa. Butterka qiyaastiisu waa 1 koob. 1 koob oo butter ah iyo 3 koob oo bur ah ayaan isku qasayaa hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo. Haddana waxaan sameynayaa gacantayda ayaan rabaa inaan la galo oo aan butterka iyo burka aan isku jajabiyo oo si fiican aan isku dhexgeliyo hadduu Ilaahay idmo. Because wax biyo ma rabin inaan u isticmaalo, wax caana ma u isticmaalay, waxba hadda ma isticmaalay. Saas u jeedaan ayaan gacanta ugu jajabinayaa butterkii oo box-ka u jarjaray iyo burkii waad u jeedaan gacanta. Hadaa rabtid labada gacmoodba waad la geli kartaa saan aan hadda dhahayo ayaad leedahay. Aad ayaad u jajabinaysaa. Waxaa la rabaa burka iyo butterka inay si fiican isku dhexgalaan ka bacdi ayaan u isticmaalayaa. Wixii biyo markaas aan ku daray. Waa kana waa diyaar waan soo jajabiyay. Inuu diyaar yahay waxa ku garanaysaa saas markaan gacanta ugu qabto oo isqabsado maasha Allah waa diyaar. Waa u jeedaan waa kaasa. Saas ayuu haddana u kala daadanayaa markaa ku furtid gacanta ku kala furfurtid. Hadda waxaan isticmaalayaa biyihii barafka ahaa. Barafka waan iska reebayaa. Biyaha qabow bas ayaan isticmaalayaa. Biyaha waxaan ugu dardarayaa si yar hal mar gab kuma siinaayay. Waa kaasa hadda burkii iyo biyihii iyo butterkii oo isku qasay burbur ayuu soo noqonayaa. Waa u jeedaa markii hore markaan gacanta ku qabto uu kala daadanayo markaan furo laakiin haddeer cajiin ayuu isku bedelayaa oo micnaha uu is dhexgalay uu isqabsanayaa. Saas ayaan u xashayaa ilaa uu ka gaaro stage-ka aan rabay. Si fiican ayaan isku dhexgelinayaa saa u jeedaan. Biyo badanna ma isticmaalay wax yar ayaan isticmaalay biyaha qiyaas. Waa kana burkii hadda waan ka bixinayaa baaquliga waxaan dhigayaa dhulka because xashitaanka waxaa ku fiican dhulka. Baaquliga always waxaa ka fiican dhulka. Dhulka waxaad siin kartaa xooggaaga dhan ayaad siinaysaa. Laakiin baaquliga markuu ku jiro waa wax godan uu ku dhibayaa. Waa kaasa saas ayaan u xashayaa ilaa uu iska dhexgalo. Burkan uu ka duwan yahay buryaasha kale ma ahan isku qasniin ya isku mid ma ah waad soo aragteen waad ila aragteen waa unique way burkan. Doogan waxaa loo isticmaali karaa ama burkan waxyaabo badan ayaa loo isticmaali karaa. Waxaasoo dhanna waa idin hayaa. Hadda waxaan duubayaa bacdan markaan ku duubo waxaan gelinayaa fridge-ka. Hadaa degdegsan tahay kor ayaad waxay gelin kartaa 15 daqiiqo 20 daqiiqo. Hadaadan degdegsanayn oo time haysidna meesha hoose ayaad iska dhigaysaa. Fridge hadaad hayninna meel ayaad iska dhigi kartaa dhib ma leh. Intuu burka fridge-ka igu jiro waxaan sii karsanayaa custard. Step-yada waa badan tahay. Aniga waxaan isticmaalay half liter caano waaye 500 ml caano fresh waaye. Caanaha nooca rabtid ayaa isticmaali kartaa. Waxaan ku darayaa half literka
haafkiis oo biyo ah. Half liter haafkiis biyo ah. Halkan waxaa iigu jira waa custard. Custardka waxaa waa qaadadaas afarteed oo custard ah, zaa'id aan u buuxin. Afarteed ayaan ku cabiray. Haddana waxaan ku shubayaa wax yar oo biyo ah. Biyaha kama badinaay. Waxaan ka rabaa inay ii qasto oo custardkaas uu ii qasmo oo smooth ii noqdo. Waa kana custardkii waan soo qasay. Duvaag ma ahan, adayg ma ahan. Waa iska softigaas biyaha ah. Haddana waxaan ku shubayaa caanihii iyo biyihii iskugu kay jiro oo digsiga ku jiray. Intaas ayaan isku qasayaa. Caanaha zaa'id uma kulula. Dabka markaan ayaan ku shiday. Wuxuu ku shidan yahay inta aan custardka qasaayo. Hadda way soo kululaadeen. Waa kaasa ujeedaa cream ay isku bedeleen. Way isa soo qabsadeen. Waan ka bixinayaa wiskida. Waxaan ku walaaqayaa oo aan rabaa inaan ku kariyo spatuladan. Ayada ayaa fiican. Maasha Allah. Digsigana kaama hooleyso. Waa kana uu isa soo qabsaday hadda custardkii. Dabka ayaa u daynayaa xoogaa. Waxaan rabaa inuu soo karo oo badbado. Dabku waa u gaaban yahay. Zaa'id uguma dheereen. Hadda u dheerayo. Salka ayuu qabsanayaa. Uuna gubanayaa. Wuxuuna karkarayaa 5 daqiiqo. Kuma badinayo dabka. After 5 daqiiqo hadda waxaan ku darayaa koob barkiis oo sokor ah. Waa half koob sokor ah. Half koobka sokortaan ku walaaqayaa. Markaan si fiican iskugu walaaqo, dabka ayaan u daynayaa ilaa 3 daqiiqo. Kabacdina waan ka daminayaa. Intuu ii qaboobay custardka hadda waxaan sii samaysanayaa. Halkan waxaa iigu jira waa tufaax. Tufaaxa kan cagaaran ma isticmaalay. Waa kana guduudka ayaan isticmaalayaa. Noocan ayaan rabaa. Waa 5 xabo ayaan isticmaalayaa. 5taas xabo waxaan samaynayaa oo hadda guda galayaa jarjarkiisa iyo sidii aan u diyaarsan lahaa ayaan rabaa inaan isla aragno. Marka hore tufaaxa dhexda ayaan saa uga jarayaa. Laba markuu ii noqdo mid walba haddana dhexda ayaan ka sii jarayaa. Waxaan ka bixinayaa dhexdaas adag ma rabi. Saa u jeedaan qolofta kama fiiqin. Ma rabi inaan qolofta ka fiiqo. Waxaan kaliya ka bixiyay dhexdaas ayaan ka guray. Waxaan u jarayaa si dhuudhuub ah deertaan. Saas ayaan u jarayaa. Kabacdina si yar oo box ayaan u jarayaa. Box waaweynna kama rabi. Meel dhexaad ayaan u jarayaa. Xabadan ayaan haddana jarayaa sidii oo kale. Marka hore dhuudhuub kabacdina boxkaasaa u jeedaan. Saas ayaan rabaa inaan kulli u jarjaro. Qofkii rabo wuu iska qaadi karaa tufaaxa qolofta. Ani laakiin qolofta kama qaadin. Saan ayaan usoo wada jarjaray yaryarkaas. Haddana waxaan guda galaa karintiisa. Baankan aan dabka saaray waxaan ku shubayaa 1 qaado yar oo ah butter. Haddaa rabtid olive oil waad isticmaali kartaa. Subaga caadigaas hinta waad isticmaali kartaa. Saliid caday markaas haday xataa ku taalo waad isticmaali kartaa. Wax dhiba oo shida ah ma jirto. Wixii markaas agtaada gurigaaga yaala leed isticmaali kartaa. Laazim ma ahan butterka. Butterkii zaa'id iguma dhalaalin. Wax yar ayaa ka harsanaa. Waxaan ku shubayaa apple-kii. Tufaaxii ayaan ku darayaa. Tufaaxa markaan ku guro waxaan ku darayaa 1 qaado yar oo ah qorfo shiidan. Qorfaha shiidan iyo apple iyo butter markay inta isqabtaan maasha Allah waaye. Waxaan ku daray wax yar qaadada afkeeda hore oo cusbo ah. Waxaan ku darayaa 1 qaado iyo bar sokor ah. Qaadada weyn aan wax ku cunno cuntada mugeed iyo barkeed. Waxa dhan saa u jeedeen hal mar ayaan isku shubay ma kala shiilin. Sababtana waxaa waaye ma rabi tufaaxa inuu zaa'id igaga bislaado. Hal mar ayaan tufaaxii sokortii wixii dhan isku shubay qorfihii. Waa kaasa wuu ii soo bislaaday. Bisayl oo jilicsan oo bajaq ma ahan. Crunch waaye xoogaa qajajacdii tufaaxa waa dareemaysaa. Dhexda waxaan idinka tusaa zoom usoo dhahay. Dhacaankaas ayaan idin tusaaya. Waa sokortii dhalaashay. Ma rabi inaan dhacaankaas ka dhameeyo oo gursado. Marka saan ayaan u daynaa. Inta uu ii qaboobayana waxaan dib hadda ugu noqonaynaa burkii aan kow ka soo bilaabayna. Bahashan aan meesha ku diyaarsaday. Foil ayaan geliyay.
burka ayaan rabaa inaan ku dubo ovenka la geliyo ani shapekan wadnaha ayaan isticmaalaya adiga kaa rabtid ayaa isticmaali kartaa afar gees wareeg kaa jeceshahay haddana waxaan bilaabayaa burka inaan fidsado sidii aan burka u fidin lahaa u jari lahaa shaqadii burka ayaan dhex galaynaa kastarkii dhinaca ayuu u karsan yahay wuu ii qaboobayaa tufaaxiina waan soo kariyey asagana sidoo kale wuu ii qaboobayaa marka intaas ii qaboobayaan burkan ayaan guda galayaa haddii ilaahay idmo burka waan fidinayaa saa ujeedaanbo burka qabow waa qabow fridjka ayuu kasoo baxay aad ayuu u qabooyaa waa sidii la rabay lama rabo bur oo burarka camal caadi warm ah inuu kulul yahay marka waxaa la rabaa qabowgaas waxa shaqaynayaba waa qabowgaas iyo barafkaas iyo batarkaas qabow iyo waay waan soo fidiyey burkii haddana waxaan korka ka saarayaa oo aan rabaa inaan ku rido weelkii aan foornada la gelin lahaa hawsha ugu adag waa tanaa recipe-gan marka aad karinaysid hawsha ugu adag waa tanaa saad u simi lahayd oo weelka ugu simi lahayd sababta aan foilka u geliyeyna waxaa waaye foil la-aan waan gelin karaa kuma dhagaayo laakiin sababta aan u geliyey waxay tahay hadhow marka aan rabo inaan weelka ka bixiyo foilka wuu isaacideynayaa oo waan ku qaadayaa laakiin burka keligiis lamana gambin karo hadhow alaabbaa dhexda uga jirta waxoogaa yara adkaanaysaa saa uga bixin lahayd marka foilkan easy waay saa ujeedaanba burka geesaha dhan inaan la siman rabaa meel kasta waan geliyey waan fariisiyey ilaa salka hadda geesahan banaanka yaala ayaan rabaa inaan iska jaro mindi ayaan soo qaatay mindida ayaan iskaga jarayaa geesaha dhan wax extra ma rabi weelka inuu la simnaado ayaan rabaa weli shaqadiisu waa harsantahay saa u simi lahaa waan wadaa shaqada waa kanaa waan soo simay waan wadaa jarniinkii weli soo ma jeedaan meeshii aan isla dhaho xoogaa way dheertahay oo weelka kor uga soo baxday waan ka goynayay finally waa kanaa waan soo simay maasha allah everywhere dhinac kasta waan ka soo simay haddana waxaan rabaa fargeetadan inaan ku dulduleeliyo sababta u dulduleelinaya waxaa waaye burkan bur xataa baking powder haduusan lahayn xoogaa kor ayuu usoo kacaa marka inuu soo kaco ama fuuro waxaas ma rabi inuu neefsadaa raba meelo uu ka neefsada ayaa u sameynaa suusan u fuurin waan dhameeyey hadda hoos oo dhan fargeetadaas ayaan kusoo mudmuday waxaan sameynaa ovenka ayaan wax yar gelinayaa 5 daqiiqo ilaa iyo 10 daqiiqo kabacdin waan kasoo bixinayaa intuu ovenka iigu jiro waxaan sameynayaa burkii aan geesaha ka jaraaye ayaan fidinayaa mar kale waxaan rabaa burkan inaan fidiyo kabacdina falaawaryaal aan ka samaysto waan soo fidiyey burkiisa ujeedaa waan kasaa burkan maahan bur dhulku dhagaay bur in lagula fidiyo uma baahna baalkan flowerkan yarka ayaan rabaa inaan ku jarjaro midkaana butterfly waaye ama balambalis midkaana wadno waaye asagana saddexda shape ayaa isticmaalaya shaybo badan ayaa haya laakiin hadda saddexdan ayaan rabaa saas ayaa ugu jarayaa kii wadnahan ku bilaabay waa kaasaa kii labaad ayaan jaray kii saddexaadna waa kana waan soo jaray asagana waxaan hadda ku jarayaan rabaa inaan haddana isla aragno kii butterfly-ga ahaa saas ayuu shape-kan kusoo baxay butterfly-ga ama balambalista adiga ayu nooc haysata ayaa isticmaali kartaa haddaa rabtid furka biyaha cabitaanka ayaad ku jaran kartaa haddaadan shape-yaashan haynin wax dhiba mala ama soodhada adi cabitaanka faantada furarkooda koro caaga waad isticmaali kartaa any markaas shape-kaad haysid ayaa isticmaali kartaa wax dhiba ma lahan intaan ayaan hadda jarjaray inta kalena markii aan soo dhameeyo ayaan rabaa inaan isla aragno saddexdaas shay baa isticmaalaya kabacdina waa isku soo noqonaynaa burkii aan ovenka gelinayay waan kasoo bixiyey wuxuu ku jiray 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo wax badan uma daynin waa ceyrin weli ma bislaanin only waxaan ka rabay inuu xoogaa ii adkaado waxaa halkan igu jira waa tufaaxii aan markii hore karsaneynay oo meel ii yaalay ii qaboobayay asaga iyo dhacaankiisii sokorta waa kaasaa waxaan ku shubay
burkii ii diyaarsanaa aan weelka kusoo shubay oo aan 10 daqiiqo ovenka soo geliyay. Waan simay. Haddana waxaan rabaa inaan ku daro inta waxa igu jira waa custardkii asagana oo ii qaboobay. Custardka xoogaa powderka ayaan ku badiyay suu adayg iigu noqdo. Jilaac zaid ka dhigtay hadhow uu kaa kala daadanaya. Marka saa u jeedaan 4 qaado ayaan ku kariyay oo powderka ahayd. Waan ku simayaa meel kasta ayaan ka gaarsiinaa. Waxaan rabaa inaan ku dado tufaaxa. Waxaan sameynayaa hadda ovenka ayaan gelinayaa kor iyo hoos 180 wuxuu igu jirayaa 30 ilaa 40 daqiiqo. Markuu bislaadana waan ka soo bixinayaa. Kuwaan aan jarjaray lama gelinayo ovenka ma rabi because hadda kor ka saaro way isdhexgalayaan. Ayaka waa kuwana weel gaar ayaan soo saaray. Ovenka ayaan gelinayaa 5 ilaa iyo waxay igu jirayaan 8 daqiiqo. Kabacdi waan ka soo bixinayaa. Waa kana uu ii soo bislaaday custardkii, tufaaxii, burkii maasha Allah si aan caadi ahayn ayay ku soo baxeen. Waan ka bixiyay weelkii waxaan saaray weel aan u diyaariyay inaan saaro oo ku saaf gareeyana. Haddana waxaan rabaa inaan ka jaro foilka. Foilka aan jaraay kan geesaha bes ayaan jaraaya. Kan hoos uu ku fadhiyo kama bixinaay because haddaan damca inaan ka bixiyo uu iga kala googo'a uu jajabayaa burka. Marka ma rabi inaan kaas ka bixiyo geesaha baan ka jaray intii aan ka jari karo oo aan ka dhamayn karo. Halka waxa igu jira waa burkii gaarka u dubaayay iyo tufaax. Tufaaxan wax yar oo sharaxaad ayaan rabaa inaan ka dhigo. Kan hadda aan wado sharaxaadiisa tufaaxa waxaan ka dhigayaa wax yar oo balambaalis ah. Waa iska sharaxaad yar decoration iska simple ah. Waxaa rabtid ku decorate gareyn kartaa. Haddaa rabtid fruits intaa jarjartid qaro cambo korka ayaa ka saari kartaa. Haddana burkii aan shapeska u soo jarayay aan soo dubay gaarka u dubay ayaan ku sharaxayaa. Isaa hore idinku sheegayba waxaa rabtid ayaa saari kartaa. Laazim ma ahan burkaan ama applekan. Fruits aa jarjaran kartaa korka ka saaraysaa. Biscuit caadi ah korka ka saari kartaa. Anything oo adiga aad jecesha ama aad ka heshid. Marka hadda waxaan bilaabayaa haddana tufaaxa inaan dhinacaas kale uga decorate gareeyo wax yar. Tufaaxa labada gees oo kor ayaan ka saaraysaa u jeedaan. Qaybtan hoosana burkii aan soo jaray oo aan dubay ayaan ka saaray. Saa jeceshayna waad u sharaxan kartaa sida markii horeba idinku sheegay. Apple-kii waa kaasa waan ku soo safay. Anisaan ayaan ka helay waa decoration yar oo simple ah. Saan ayuu ku soo baxay markii aan soo kariyay alaabtii oo dhan soo dubay soo sharaxay everything. Wax yar oo simple waaye maasha Allah macmacaan. Anytime ayaad karsan kartaa. Martiqaada u karsan kartaa. Ramadaan haday tahay after afurka u karsan kartaa. Waqtiga adiga aad jeclaysatid casariye ahaan. Anything waqti kasta anytime. Haddana waxaan rabaa inaan jaro suu ku soo baxay inaan isla aragna maadaama korkii aan isla aragnay oo aan isla soo karinay isla sharaxnay. Marka haddana waxaan rabaa gudihii inaan u gudubno. Waa kaasa burka wax yar hadda idin tuso waa biscuit camal. Sidii biscuitka ay u jajabayaa. Biscuitna ma ahan bur ahaantiisa asal laakiin waxa waaye burarka kale uu ka duwan yahay. Qasninkiisa iyo karninkiisaba. Haddana waan dhameeyay saa u jari labada gees ayaan ka soo jaray. Si fiican ayaan ilaa salka u gaarsiiyay mindida soo igaga soo fuqo marka aan qaadayo. Haddana waan soo qaadayaa. Waa kaasa saas ayuu ku soo baxay. Haddana waxaan rabaa korka inaan ka saaro ice cream yar oo vanilla ice cream. Any ice cream ayaad kor ka saari kartaa. Apple-kiisa u jeedaanba waa kaasa ma burburin waa sidiisii. Meel kasta aad joogtaan daawasho wacan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.